dhawaan ayay ahayd markii wareegta ka soo baxday taliyaha ciidamada booliiska Soomaaliland Sareeye Gaas Cabdillaahi Fadal Iimaan xilka looga qaaday taliyihii booliiska gobolka Sool gaashaan la sare Cabdiqaadir Maxamed Faarax isla markaasina loo wareejiyay inuu ahaado taliyaha booliiska gobolka Sanaag barasaabka gobolka Sool Cabdi Khayr Diriir ayaa u kala wareejiyay xilka labadaasi mas'uul hadalla kooban oo goobta ka jeediyay taliyuhu waxa uu mahadnaq gaarsiiyay dhammaan shaqaalihii kala duwanaa ee la soo shaqeeyay muddadii uu ka howlgalay gobolka qaybtii hore booliska gobolka Sool waxaan halkan isugu nimi xafladatan saraakiisha gudoomiyaha gobolka saxaafadda xil wareejin mas'uuliyadii iyo xilkii taliye qaybeed oo aan hayo aan ku wareejinayo taliye qaybta loo soo magacaabay saaka waxaan xilka halkan ku wareejinayaa ku soo dhaweynayaa gaashaanle Maxamed Cali Ciise taliye ku xigeenka qaybta booliska gobolka Sool waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa Maxamed iyo ragga kale halka fadhiya saraakiisha booliska gobolka Sool ka howlgalaysay sidii hagarlaanta iyo hufnaanta lahayd iyo kala dambeyntii nidaamka ay la shaqeeyeen barasaabka gobolka Sool Master Khayr oo goobta ka hadlay ayaa isaguna ku amaanay gaashaan la sare Cabdiqaadir Maxamed Faarax sidii quruxda badnayd ay u soo wada shaqeeyeen marqaati ka nahay ama goobjoog ka nahay aniga iyo dhammaan saraakiisha heer gobol iyo heer degmo ee halkan ku sugan inuu maanta si rasmi ah xilkii uu qaranka u hayay taliyihii hore Cabdisaaq Maxamed Faarax gaashaan la sare uu ku wareejiyay taliye ku xigeenka qaybta booliska gobolka Sool Maxamed Cali Ciise ahna ku simaha taliyaha qaybta cusub ee booliska insha Allah taala iman doona waxaan leenahay isagana Cabdisaaq Ilaahay waxaan uga baryaynaa xilka cusub ee loo magacaabay Ilaahay ku asturo gaashaanle Maxamed Cali Faray ku simaha taliyaha booliska gobolka ayaa isaguna kala wareegay xilka gabagabadiina waxa la gudoonsiiyay shahaado sharaf taliyaha xilka baneeyay Xamsi Xaaji Maxamuud Raadiye wararka telefishinka Universal Laascaanood